boqol mitir orday kaalin koowaad aan galay iskuulkina waa orday waan ku faraxsanahay iskuulkii aan guush soo qaado برينا waxaan sugaynaa xiisadan ka fiican inay degmooyinka dadka soo xusho inay gobolada dadka keento inay qaranka Soomaaliya ay muxuu ahay ay gobol degmo tuulo ka keentay iskool xaafad laga soo aruursho tartanka iskuulaadka ee xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ee sanadkan qabteen ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho tartankan ayaa waxaa ka qayb galay 24 iskuul waxaana isku soo dabariday macallimiinta iyo sidoo kale guddiga fulinta iyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya tartankan ayaa markaasi waxa uu la ordayay qaybo kala duwan oo markaasi ay kamid tahay 100 mitir iyo sidoo kale 400 iyo qori isku dhiibka ayaa maanta ee lagu soo gabagabeeyay tartankan ayaa waxaa markaasi ku guuleystay iskuulka Cabdulcaziz ee ku yaala degmada Cabdulcaziz ee tartanka sanad dugsiyeedka ee ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayuu markaasi noqday halka kaalinta labaad uu markaasi soo galay iskuulka Raawugaas oo isna markaasi dhammaan ciyaarihii orodada ee la orday si weyn markaasi kaalin muhiim ah ee ka soo galay waxaana tartankan maanta abaalmarino kala duwan ee lagu gudoonsiiyay ciyaartooyda qaybahooda kala duwan ee markaasi ku kala guuleystay kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad inta badan ee la orday tirooyinka aan soo sheegnay ee markaasi ah 400 iyo 100 mitir iyo sidoo kale qori isku dhiibka oo markaasi aad u xiiso badnaay waxaana tartankan xiritaankiisa ka soo qayb galay madaxda xiriirka ciyaaraha fudud ee markaasi hogaaminayso Marwa Khadija Aadan Daahir iyo sidoo kale ku-xigeenka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya Mustafa Maxamed Cabdulcaziz sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee kooxaha xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ee markaasi u diiwaan gashan halkaas oo ay markaasi ka xulan doonaan ciyaartooy aad u fara badan oo markaasi u matali doona horyaalada kala duwan ee la ciyaaro sidoo kale waxaa madasha ka hadlay mas'uuliyiin aad u fara badan oo markaasi ku bogaadiyay dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin markaasi marti sharaf ah oo lagu casuumay tartankan in ay markaasi ka soo qayb galaan iyagoona loogu mahadceliyay xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya sida quruxda badan ee tartankan ay u soo abaabuleen anigoo ah gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud Torres Khadija Aadan Daahir waxaa maanta farxad weyn ah in ay maanta loogu soo gabagabowdo Stadium Banaadir ama Wish Stadium oo ciyaarihii aan furnay muddo socday ciyaarihii dugsiyada gobolka Banaadir waxaan leenahay ciyaartooyda si sharaf leh uga soo qayb galay nidaamka iyo dastuurka waa u mahadcelinayaa macallimiinta sharafta leh oo baryaha nala taagnaa waa mahadcelinayaa saxaafadda haddana waxaa idinla socodsiinayaa in ciyaarihii dugsiyada gobolka Banaadir ee maanta meesha loogu soo xirmay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maamulka Khadija gudoomiye ku-xigeenkaada iskoolaadka wixii oo ku saabsan ciyaaraha fududna anaga diyaar u nahay ma sha Allah horumar fiican oo gaarayaan maadaama maanta hadaan qaldaneen oo horyaal la furay ciyaartooy yargeeda ordeen kuwa waaweyn برينا waxaan sugaynaa xiisadan ka fiican inay degmooyinka dadka soo xusho inay gobolada dadka keento inay qaranka Soomaaliya ay muxuu ahay ay gobol degmo tuulo ka keentay iskool xaafad laga soo aruursho assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan xiisadoo waa aadiyad waxaad gashay kaalinta labaad tartanka 400 ee orodka aad u faraxsanahay maanta dareenkaaga war aad wallahi aad u faraxsanahay inaan kaan labada galo iskuul Raawugaas ka socdaa أولاً قدية عيارة فضل أو ما دعنا إن هذا هركان جاري سو أنت سنترتك بلابن أنت بلاو هذا مرجينيس ها مرة بدها إن شاء الله مرجين جري ما أنت وعي كين ما ملا سكول كينا أو ما أنت سكر خد ماشي إنسو بندقي أدي أفرح سنة راوغاس هي بوليستي حياة رجينيس مستقبلك إن شاء الله سلام ده قولك غير كده متشانة عادي ده ما استقبلوا أنا كل جنسة إن شاء الله xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayaa markaasi laga sugayaa in ay qabtaan tartamo kala duwan horeyna waxa ay u soo qabteen tartamo caalami ah oo markaasi qaybaha kamid ee horyaalka dalkeena Soomaaliya iyo tartanka Jiran Daawud oo dhawaan soo dhamaaday